waxaan u mahad celinayaa Prime Ministerka hawsha uu ka qabtay galmudug waan wada soconay week baan ka soo horeynay sidina uma aanan laaban Prime Ministerka wuxuu leeyahay bila sharaf gooni ah madaxweynaha sidaas oo kale maxaa yeelay maanta waxaad muuqata galmudug inay isku timid isgarab taagan tahay isku yimaadeen joogaan caasimadoodii waxaan maanta soo dhaweynayaa anoo xildhibaanadoodii ah odayaashayadii dhaqanka oo sida sharafta leh u yimid magaaladoodii caasimadoodii kana yimid shirkii hobyo intaasna u fadhiyey odayaashii kalena ay imaan doonaan insha Allah dhammaantood wax cuduraa ma jiro dhismaha galmudug dhammaanteen ayay noqosaysaa inta maqana waxaan leeyahay walaalayaalow waxa ugu horeeya in la helo waa maamul haddaan la helin wax noo hagaagaya ma jirto aan dekadeennii maalin dhaweyn la saxiixay oo ilaahay mahadiis aan ku helnay inaan dhisano aan ka wada shaqeyno reer galmudugow galmudugoo gacanta is haysata oo cidna xoogin oo cidna aysan dibin daabiyeenin oo qoys walba rabitaankooda ay ku yimaadaan ayaan filaynaa in halkaan ka dhacdo